Audio Jungle. maanse kale waxa jirta iyaduna aan tan labaad idinka dhigi doono waxa weeyaan maansadan wax tagi ma dhaafta la yiraahdaa waa maanso weyn sameynaa Soomaalida ay sheegaysa dhaliisha Soomaalidu leedahay maansadan saddex waxyaalood baan kaga hadlayaa waxyaalaha ugu badan in aan u arkay maansada ku jira waxa weeyaan in qof Soomaaliya in la diin ah in la diir ah isku dalna aynu nahay walibana oo baahan oo ay agtaada ku baahan walibana diifna u dheer tahay ilaahayna ku siiyay awoodii iyo kartidii aad ku caawin lahayd inuu nin ajnabiya yuhuuda isku diinaynaan ahayn isku dhaqanaynaan ahayn intuu wadan shisheeye uga yimaado inuu caawiyo adigoo haysta wixii Allah waxaad ku caawin karisay dareen intee leeg bay dhalin karaysaa walaalka oo xaqan baahan in uu nin yuhuuda oo kula diin ahayn intuu wadan kale uga yimaado uu caawiyo adigoo haysta waxyaalo wixii aad ku caawin karisay waxa kale oo jirta oo kaga hadlaya maansadan luqadeena Soomaaliga dadka badan dad inagu siinay waxaan moodnaa in luqadan Ingiriiska aynu dhanano ay tahay luqad cilmiya waxaad arkaysaa qofku markuu gaadho 12aad ama 12aad ama uu gaadho kulliyad oo kale uu dhiganayo in hadii la yiraahdo qofkaas Ingiriiska ma yaqaan la dhahayo oo xilli waxa tahay xilligan aad dhiganaysaa ay sayid Ingiriiska ugu qeyrayso waxay ka dhigayaan marka Ingiriiska inuu yahay shay cilmi luqad marka meesha ka baxaya adiga luqadaadii wadan walba ay gaaragto wuxuu sameeyaa marka loo tago in uu luqadiisa hadii aad barato mooyeen una shaqo ku siinay wuxuuna sameeyaa wuxuuna ku hormarinayaa luqadiisa wadan walba aynu tagno saasay wadamadaas sameeyaan innagana keena xaqan jooga isagoo 18 jira markuu ka baxo xaqan uu tago wadan shisheeye 20 jirka Soomaaliga ma yaqaano uu jijibinayaa Soomaaliga marka maansadan waxaan kaga hadlayaa taas iyo qabyaalada oo ah shay ay noo soo jeexeen awoodii oo xuna awoodeen dadkii nagu waabina waxay noo soo jeexeen laba dariiq oo ahaa dariiq dhaqana iyo dariiq ahaa maxaa qabyaalad oo aad u daran waxaynu qaadanay dariiqii xumaa ee ahaa qabyaalada waxaynu ka boodnay dariiqii ahaa dhaqanka walow dhaqankeena ayagu si fiican u haysteen laakiin shayga ay isticmaali jireen ayaan qabyaaladii waan qaadanay laakiin ma garanay sababta in dhaqanka uga tagay marka maansadan wax tagi ma dhaafta la yiraahdaa waxayna ku bilaamaysaa tixda maansadaydiyo taalayda gabaygana aan soo tukubiyay waxaan hadal ku taagsaday Soomaaliya tabteeda ku tisqaadaysaanood qeyrka halkuu tagay had ma tiigsan doontaan wax tagay ma dhaaftaay wax tar ma doontaay qabyaalada ku tarantaay qudunkana tusmaysaay nacabkeeda tiirshaay waadiganta soobe ma sixir baa lagu tufay aan tirmaynin nabadkiis نعم waxay sheegaysaa inay meeshii ay istaagtay ka dhaqaaqlaada miskiin tuuray waayuhu laamiyada ku tuugsada la taag daran itaalo tiiraanyana u dheer tahay tolnaadiga ku xiga yuhuudkoo talabiib jira talabiib marka waynu garanaa waxa la yiraahdaa caasimadan yuhuudkoo talabiib jira dhaqankiisu tuur yahay diintiisu taban tahay inuu siiyo taageer hugatiisa la xidhiyo baahidana ka taakulo ama uu wanaag taro ka tirtira dhibaatada talamiyaad ku goyseen ma yatiirshini marka waxay leedahay nacam inaad qof xagga intuu uga yimaado xaggan ku caawisan masaasa tala ka dhigateen talamiyaad ku goyseen ma yatiirshini ma yataakuleyntii ani ee tilmaanahay dhaqankii maxaa tiray walaalnimadii maxaa tigay sawkii tabi jiray walaalnimadii maxaa tigay shaygii aan caan ku ahayna waxay ahayd qofka Soomaalidu dhaqankeedii ahaa in qofka walaalkii Soomaaliga baahan inuu ku eegi jirin baahida waxa la dhigi jiray oo loo xool goyn jiray qofkayga Soomaalida waxa la dhigi jiray xool gooy loo sameyn jiray qofku markuu ama xooluhu ka dhamaadaan baynu inaga bariga waxa ahayd shayga ugu qaalisan ee laystay xoolaha ay xoolo dhaqataan qofku markay xooluhu ka dhamaadaan ama abaar ka dhacdo waxa la sameyn jiray shay la yiraahdo xoolo gooy oo qof reer walba xoolo neef iska soo qaadi jireen kadib sidaas lagu siin jiray marka sumad baan u lahayntaa tibta mooyaheedaan haruuliyo ku tumaya dunta aan ku toosnayn irbadaan ku talaya
nacam dee xagee ka talmaysaa waa kan sagaalo ku talba dun haddaad irbadii ayna ku jirinba waxbay ku talaysaa duntu aan ku toosnayn irbadaan ku talayaa waxse hadal ku taagsaday Soomaaliya tabtiyeeba ku tisqaadaysaanood qayrkaa halkuu tagay had ma tiigsan doontaan taladaadu sawtii dadku ku tagi jiray tiscaleen leeyado taladaadu sawtii tixda maansadeediyo garaarada ku tabin jiray taladaadu sawtii lagu taami jiray guul iyo taran barwaaqa taladaadu sawtii ruuxii aad ku tarta inuu toosan mooye marna aysan tuuray eegana haddii 90 qof intaasoo qof isku timaado Soomaaliya reer yaro istirreed la yiraahdo xaliyaan xaasha lillaah dadkeenii hore Soomaalidana intaasoo wax isku yimaaday laba qof ay isku imanayay xagaas lagu talin jiray xagaasana xaajada lagu dhameyn jiray inuu toosan mooye marna aysan tuurayn waxse hadal ku taagsaday dhaqan baan lahaa tusan diin baan lahaa tugan dadnimaan lahaa taran dareen baan lahaa tudha nacam dhaqankaygu dhaqan muuqda buu ahaa oo aniga iga muuqda diintayduna ma ahayn diin taban oo diin waxay ahayd tugneyd dadnimadeeduna dadnimo dhaqmaysa baa dadnimada waxa la yiraahdaa shayga wax wanaagsan ee qofka lagu yaqaan ee dadnimo la yiraahdaa kaade xaga yuhuudka joogo waa dad laakiin dadnimada waxa la yiraahdaa qofku inuu wax wanaagsan ama damiir damqada u leeyahay dadnimana ku dhantay dareen baan lahaa tudha hadda waa tifteen oo hubahaad ku tashataan hidahaad ku tumataan luqadiina tuurtaan waxa aad ku toostaan ajnabiga tiiso waad istakoortaan maalin dhowtore shir wiilashii lagu Ethiopian Airlines ay la qabyaaladeeyo ama waxa ku qornaa boorashoodii takoorka hayba takoorka iyo waxa haddaad adigu istakoorayso seebu qofka kale ku takori tiisa daryeelaa tu kale ku darabeeyo Soomaalidu dhaysama markaad adigu istakoorto kan kale soo ku takorin ajnabiga waxa aad ku toostaan ajnabiga tiiso waad istakoortaan waxse hadal ku taagsaday tixdu ay ku tusaysaa inaad tahay matiigsaday tukaluu dad leeyahay taageero oo jecel tiisana tiraayo tufayo nacaayo ku tuntoo ku joogsada qofka tiisi intuu ka tagay tukale luqad kale isticmaalaya miyay oonan tiisina xaga ku iloobay miyaynan markaa taas micnaheedu ahayn inuu qofkaasi luqadiisi nacayo ku tuntoo ku joogsada waxse hadal ku taagsaday tixda maansadeedana aan ku toosinayaa Soomaaliya tabtiyeeba ku tisqaadaysaanood qayrkaa halkuu tagay had ma tiigsan doontaan ad ku taami doontaan maansadaasina xaggaasay kaga dhan tahay